qof kastoo inaga mid ahi wuxuu leeyahay karti iyo himilooyin ka dhex jira oo uu ku riyoodo oo uu doonayo inuu gaaro. Si uu u gaaran waxa uu u baahan yahay karti. Himilooyinkiisa si uu u gaaro waa inuu rumaysto kartidiisa. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa xigmado ku saabsan kartida. Kartida kama timaado awoodda jir ahaaneed, laakiin waxay noqonaysaa rabitaan aan la heli karin. Doonistu waa fikirka, go'aankuna waa nafta. Geesiyaasha laguma sameeyo hoolalka tababarka. Geesiyaasha waxaa laga sameeyey waxyaabo qoto dheer oo gudaha ah, taas oo ah rabitaanka, riyada iyo himilada. Qofkii karti lahaadaa xoog buu yeelan doonaa. Kartida awoodda leh waxay yaraysaa masaafada aad soconaysid. Hadday kaa lunto kartida waxaad tahay qofka ugu daciifsan dunida. Sheegitaanka keliya ee ereyga karti wuxuu xoojiyaa qof leh awood aan caadi ahayn. Doonista guusha ayaa muhiim ah, laakiin tan ugu muhiimsan waa rabitaanka isu diyaarinta guusha. Rabitaanka daacadda ah ee qofku wuxuu u egyahay karti qarsoon oo gadaashiisa gadaal ka riixaya, isaga oo ku riixaya dariiqa guusha iyo koritaanka waqti markii ay ka hortagayso inuu joojiyo ama ka noqdo. Kartida waa waxa kugu riixaya tallaabada koowaad ee waddada halganka, laakiin go'aanku wuxuu ka dhigan yahay waxa kugu haysta waddadan ilaa dhammaadka. Ha u oggolaan in carqaladaha kaa horjoogsadaan shaqadaada. Haddii gidaar la kulantid, ha u noqon mid niyad jabsan. Waa inaad isku daydaa inaad fuusho ama ka gudubto.